الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته soo dhawaada dhammaantiin saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan soo gaarnay qaybteennii casharada aan kaga hadlaynay taxliilinta dhaqaale ama wax loo yaqaano fundamental analysis dabcan haddii aad la socotay koorsadeenna aan ku duubaynay website-keenan Smart Investment Academy ama wax loo yaqaano SIA waa koorso runtii nooceeda oo kale kacabduul ahaan aan hore u duubin mar walba aan wax duubayno ama mar walba aan wax diyaarinayno waxun deadline ah ayaa nagu socday ama degdeg baa jiray ama orod baa jiray ama baahi markaa taagan baan ka jawaabanay laakiin casharada website-kan ku jira ama koorso halkan aan ku diyaariyey waa koorso runtii laga fiirsaday oo ilaa 3 bilood marba tilaabo si degan loo qaaday fiidiyoyada aad hadda soo gaartay ee taxliilinta dhaqaale runtii waxaa galay waqti aad u fara badan waxaa galay boqolaal bugaaga oo la akhriyay boqolaal saacadood oo economic data oo la soo akhriyay oo adiga ay ka qaadan doonto 5 daqiiqo 10 daqiiqo ilaa wax 15 daqiiqo aan ka badnayn isku day marka fiidiyoyada meesha ku jira inaad waqti ku filan siisid sababta aan u soo koobay fiidiyoyadan waxaan doonayaa wax aniga kumanaan saacadood ama boqolaal saacadood iga qaadan lahaa in adiga wax yar ka qaataan dabcan qaybta taxliilinta dhaqaale uma baahan doonto sidii technical analysis-kii inaad waxyaalo badan sawirtid waxay u baahan doontaa qoraal inaad fahamtid iyo afkaar iyo waxyaalo theories inaad fahamtid waxaan soo qaadan doonaa qoraallo runtii ka kooban oo dhowr boqol oo page akhrintood kadib aan dhowr sadar ama dhowr paragraph aan kugu soo koobay isku day inaad videoga boos ku qabsatid qoraalladana aad mid walba markiisa aad akhrisid haddii aynu bilaabano dabcan sida hortiina ka muuqataba taxliilinta dhaqaale ama wax loo yaqaano fundamental analysis macnaha rasmiga ah ee fundamental analysis ma ahan kaliya inaad soo eegtid forex factory website-ka la yiraahdo deedna aad ilaashatid bushqada casaanka ah ama wax la yaqaano calaamada warka ee casaanka ee soo baxaysa iyo goorta ay soo baxayso hase ahaatee barnaamijkani waa cilmi iyo aqoon iyo xirfad u baahan dadaal iyo barasho la mid ah sidaan usoo baranay taxliilinta farsamo very important inaad tagtid waxa la yiraahdo forex factory deetana aad daawatid ma xariijin casaana soo baxday ma mid cagaara soo baxday wuu ka guda ballaaran yahay barnaamijkan loo yaqaano fundamental analysis haddaba aniga oo koobaya haddii aan qeexno fundamental analysis wuxuu yahay taxliilinta dhaqaale waa halka aynu ku ogaan doono xaaladda dhaqaale ee ka jirta dalalka aynu lacagahooda isku bedelayno haddii aad tiraahdo euro USD baan isku bedelayaa waa lacagta Yurub iyo lacagta Mareykanka ayaad isku bedelaysaa marka waa muhiim inaad fikrad ka haystid labadaba haddaba inaad dal lacagtiisa dal kale ku sarriftid waxaa qayb weyn ka qaadan kara inaad faham buuxa ka haysato dalka dhaqaalihiisa taxliilinta dhaqaale waxa inoo fududeysaa go'aanka ah in dalka warkaasi ka soo baxay aad lacagtooda ka soo horjeesatid adiga oo aaminsan inay qiimo dhacayso ama depreciated wax la yiraahdo ay ku dhacayso ama inaad dalka lacagtiisa la jirsanaysid adigoo aaminsan inuu dhaqaalahoodu hagaagay oo lacagtoodu ay qiimo ahaan hagaagayso ama ay ku dhacayso wax loo yaqaano appreciated meeshan haddaad tusaalayaal dul istaagno markaad forex factory joogtid ama aad joogtid waxa la yiraahdo tradingview.com deetana aad tirahdid AUD USD baan kala gadayaa waxa la kala iibinayo ama laisku sarrifayo waa lamaana lacageedka Australian dollar iyo United States dollar soo maaha haddaba labadan dalkii dhaqaale ahaan hagaagsan ayaa lacagtiisu suuqa ay saameynaysaa mar walba ay lacagtu beer ahaan isku raacda sida hadda halkan kaaga muuqato oo kale waxa shaqada laga qabanayo waa lacagta hore ee tusaalaha hadda inoo ah AUD haddii AUD USD aragtid waxa shaqadu ay ka socoto waa kee waa AUD USD baa buy ku sameynaysaa ama sell ku sameynaysaa against US dollar haddii marka ay AUD awood leedahay suuqi kor buu aadaya oo buy buu noqonayaa maadaama ay AUD ka awood weyn tahay USD oo waa sida miisaankan oo kale haddii lacagtan awood leedahay maxaa dhacaya inuu miisaankii uu jihada kale u jeesto oo uu hoos aado ayaa dhacaysa soo ma haddiise laakiin Australia ay liidato oo Mareykanka uu ka awood weyn yahay yaa dhinacee baa la aadayaa dhinacaan hoose ama lacagtan hoose dhinaceeda ayaa la aadayaa oo AUD USD markaad timaadid sal ayaad ku galaysaa marka lagu leeyahay marka appreciated iyo depreciated waxa laga wadaa waa inaad fahamsan tahay dhaqaalaha Australia iyo dhaqaalaha Mareykanka kee ayaa hagaagsan haddii Australia hagaagsan yahay markay labada lacagood kulmaan Australia la jirsanaya buy baan u gelayaa haddii Mareykanku hagaagsan yahayna markay labada lacagood kulmaan Mareykanka la jirsanaya AUD USD sal ayaan u gelayaa alright
haddaba ma doonayo inaan dheereeyo fiidiyoyadan iyo macnaha meeshan ku jira oo dhan. inta aan wadno marka casharadeena taxliilinta dhaqaale, qodobada ay muhiim ka tahay inaad wax ka fahamtid waxna aad ka fahmi doontid waxaa ka mid noqon doona ama waxaa ka mid ah doorka bangiga dhexe uu ku leeyahay dhaqaalaha dalka iyo suuqan sarifka lacagaha qalaad. waxaynu wax badan sharixi doonaa central banks iyo roolkiisa iyo awoodda uu leeyahay. sidoo kale waxaan sharixi doonaa sicirka lacagta iyo saameyntiisa ama wax loo yaqaano inflation rate oo runtii aad iyo aad u muhiim ah. sidoo kale waxaan ka hadli doonaa xasiloonida dhaqaalaha dalalka ama wax loo yaqaano gross domestic product. intaas markaynu ka hadalno haddana waxaynu ka hadli doonaa iswaafajinta xogta soo baxday iyo jihada suuqa. markaan saddexdan xog ka helno trading view ayaan la tegi doonaa, kadibna lacagta chartiga ka muuqata ayaan isku dayi doonaa inaynu waafajino. sidoo kale waxaynu ka sheekeyn doonaa sida loogu diyaar garoobo wararka waaweyn adigoo excel sheet isticmaalayana aad sanadka oo dhan 4 biloodoo walba aad og tahay meesha ay wax u socdaan. oo waxaynu helnaa xog 4 biloodlah, xog sanadlah, xog waxaa la yiraahdo billa ah. so haddii bishii lasoo dhaafay xogtii Mareykanka soo baxday ay tahay xog wanaagsan, Mareykanka waa inay ku kaydsan tahay oo bishaas oo dhan aad leedahay aragti kaaga aadan doolarka oo aadan maalinba meel u boodboodin. haddaba isku day qoraalada sidaan oo kale ah ee soo bixi doona inaad mid walba waqti ku filan siisid qortid, kadibna aad fiidiyowga boos ku qabatid, wax walba marka aan ku sharaxana aad dib ugu laabatid waxa loo yaqaano suuqii, deetana aad practical u aragtid. intaynu fiidiyowgan mid ku kulmi doono dhammaantiin waxaan leeyahay amaana Allah.